shirweynihii ururka dib u xoreynta Soomaaliyeed uga socday magaalada London ee cariga Ingiriiska muddo 2 maalmood ayaa maanta la soo gabagabeeyay. Mas'uuliyiin badan oo ururka dib u xoreynta ka tirsan taageerayaal iyo shacab kale oo isaga kala yimid aafaha adduunyada ayaa ka soo qayb galay muddada 2 maalmood ahayd ee uu shirku socday. gudoomiyaha cusub ee isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliyeed mudane Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo dhawaan xilka la wareegay kadib markii gudoomiyihii hore Sheekh Xasan Daahir Aweys uu ku biiray urur diimeedka Xisbul Islaam oo hadaleer madasha ka jeediyay ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa. Therefore sovereign stateska weeye waxa asaaska UN waa Ban Ki-moon waa shaqaale Security Council-ku u shaqeeya ninku si magacaabeena kaba sii daran adigu markay inaad u sheegtid way dantaada waxaas aan u baahna noo qabto haddaan qabanan hor iska tag laakiin inaad u qaadatid ninka adduunka xukumay inuu yahay adigana marka uu ku xukumo halkaa weeye meesha mushkiladu ka dhacdo dhig xataa isuma ahidin adaa sareeya markii Soomaaliya laga hadlayo way gurigaaga baa laga hadlayo marka waa inaad u sheegtaa waxaad u baahan tahay tirada waxaas aan u baahnahay hadda adigu adduunka keen kartid ka kow awoodaha ilaahayna siiyo inaan isticmaalayn oo nicmooyinka rabbi noogu deeqayo dadku ay sanad wadaagin waxa kamid ah mid wax kasta inuu kamidaysan bal caalamka soco oo hal sidaynu u midaysanahay wax walba uga midaysanahay cid ka midaysan dawladda Sacuudiga Carab weey af Carabi ku hadasha diinta muslimka meesha ku soo degtay way haddana ma midaysna gobolada batrool ka soo baxo waa shiic weey u haysta waliba in gumayso lagu haysto reer Najdi iyo reer Hijaaz baan israaci karin xoog in la isku hayo maahan waayo historical waxa jira animosity oo islaamka xataa ka horeysay aduu ma qabtid waxaas waa ku cayaar waa garan weyn af diin diir dal story everything ma ka midaysan waxay la mid tahay diiriye iyo Sakariyo labada magac ku diray wad it doesn't make any sense wax macnaha ay sameynayso male maanta oran haddaan Sakariyo ku diray Sakariyo waa la yiraahdaa bad macnaha ay sameynayso laakiin ma jiro waxaan diiriye Sakariyo ugu dirayna yaani intaasaan inta ka midaysanahay magacyadii lagu kala doonaa xataa xooluhu magacyadu waa ku kala duwan yihiin riyu waa ku kala duwan yihiin magacyada yaanu ku dirayna isku haysana waa problem waa wax la yaab la way waa qiyaame waa umad cuquba ku dhacday way iska daa waxa dhulka yaala korkiisa iyo waxa gudaha ku jiraan cid wali sidoo kale waxa ayna halkaasi ka hadlay xogayaha xuquuqul insaanka iyo arrimaha haweenka Marwo Dictor Saamine Axmed Warsame gudoomiyaha guddiga samafalka golaha dhexe mudane Maxamuud Cabdi Gaab la taliyaha gudoomiyaha isbahaysiga ee umuuraha amaanka mudane Cumar Salebaan wakiilka Scandinavian-ka ee isbahaysiga Diiriye Maxamuud Guure iyo mas'uuliyiin kale oo badan gabagabadii shirka ayaa waxa uu shirku soo saaray war saxaafadeed nuxurkiisu ahaa walaadaha la joojiyo wada hadal dib u heshiisineedna loo gogol xaadho sidoo kalena ciidamada ajnabiga ah ayay isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliyeed ugu baaqeen inay wadanka iskaga baxaan halka ay wadamada dariska la Soomaaliyeed ugu baaqeen inay joojiyaan faragelinta ay ku hayaan wadanka Soomaaliya war-saxaafadeedkaasi ayaa waxa ku saxiixnaa gudoomiyaha cusub ee isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliyeed mudane Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi Maxamed Yaasiin RBC London